السلام عليكم محاربين أنا أبي إذا كسي حالي دجالكي كسعودي بريق الدحيح يوجي عصب وقلي وحاد عضي دور شيء أو عن ربعنا إذين جود مرة مركب فضلا هدي آدم بيش كان روح حرنين صراع سيان مركب الجوريثم كأنه قعويان إن عدد بدن جارنا وحاور بحين ديبي وزير الدفاع عدل كمرايكن كبيت هيكست يعني كلا أولو يقان joint chairman of the joint chief of staff أو إذا ماذا مرايكن كدن كيبه ذكر جد السن نينك هوستجان لابد ده بمركي لويدي qaabka ay u socdaan dagaalada iyo guud ahaan ujeedada laga lahaa ayaa waxay sheegeen in aysan sheegi doonin waqtiga ay rajaynayaan inay soo gabagabeeyaan iyo sidoo kale in aysan dhihi doonin waxaan aan hadda sameyn doono iyo waxaan balse waxay si kooban u qeexeen inay dhahaan inay rabaan in ay uryaamiyaan ciidamada badda oo maxaa la yiraahdaa Iran iyo sidoo kale madaafiicda dhahay gaari karo meelaha Mareykanka danihiisa ay ka jirto marka intaas hadii aan burburino macnaheedu waxa waay waan gaarnay yoolkeena waxa sidoo kale la weydiiyay in ay u arkaan regime change ama si in la bedelo dawladda xukuumadda Iran inay tahay goolka taas xoogaa way ka baaqsadeen waxay dhaheen Pete Hegseth inta la markuu ka jawaab wuxuu yiri dabcan وبدل oo yiri in qofkii hogaanka ahaa macnaha wuxuu ka wadaa Khomeini oo la dilay balse yoolkeena anaga taas ma ahan ciidan meesha dhulkan markay hadda inuu soo galaynin ayuu ka dhigayaa kadib markii la sii weydiiyay la yiri adinka ciidamadiina ma gali doontaa gudaha Iran hadda ma joogaan taasna uu ka baaqsaday wuxuu yiri qaabka aan wax u wadno hoose ma sheegayno sidoo kale wuxuu aad u faaniyay ciidamada Israa'iil iyo guulo ay leeyihiin sidoo sheegay marka dadka arrimahan adorso ama se sheego waxay sheegayaan inay ujeedooyinka Mareykanka iyo Israa'iil kala duwan yihiin Israa'iil waxay sheegatay ay rabaan in ay bedelaan markastaba in ay ka takhalusaan dadka Iran ka taliyo taas ayagana u arkaan guusha kaliya wayna xoogaa waqti oo dheerna way rajaynayaan oo hadda Israa'iil qiyaasteeda waxa la yiri waa 2 isbuuc in lagu soo gabagabeyn doono halka dalka Mareykanka uu afar bari kaliya ka ahaa macnaha qorshahooda hore inkastoo aysan kor u sheegin waa war hoos loo soo dusinayo afartaas bari xitaa ayaa hadda qaylo badan iyo sawaxan badan Congress-ka ka jira Marco Rubio oo ah wasiirka arrimaha dibadda wuxuu asigana sheegayaa in ay khatar ku hayso Iran ay ku hayso Mareykanka marka hadalkaas si fiican isku keenayo dad ayaa jira hadalkaas taxliiliyo ayagoo ku shactireysanaya bal ninkan qaabka uu sheegayo la daawo Iran possesses a very large number of ballistic missiles, particularly short-range ballistic missiles that threaten the United States and our bases in the region. You mean these military bases? The ones that you built surrounding them? That's why they're being hostile towards... dhanka kale waxaa sidoo kale soo galay dagaalka Hezbollah oo ayagana dhanka Lebanon ka soo weeraray oo Israa'iil weerar ku soo qaaday markay arintaas dhacday kadib ayay ayagana Israa'iil ku jawaabeen madaafiic ay markaas ku beegsanayaan magaalooyinka Lebanon gaar ahaan Beirut dhankaas iyo Saudi Arabia waxa ayadana la target gareeyay weerar lagu dhuftay meel saliida lagu refine gareyn jiray lagu kala miiri jiray oo loo yaqaan refinery oo ku taal oo ay leedahay shirkadda weyn ee caanka ah ee loo yaqaan Saudi Aramco shirkadaas oo si toos ah u leedahay dawladda Sacuudiga oo noqon doonto arrin aad iyo aad looga cabsanayo in ay dhaqaalaha adduunka meel weyn ay maxay ahayd uga dhacdo oo ay keento shidaal la'aan baahsan oo adduunyada dhan kala gaarta sida uu sheegayo mas'uulkan Sacuudiyaanka ah ayaa wuxuu leeyahay dawladda Mareykanka way dayacday Sacuudi ayagoo markaas difaac weyn siinaya ama ku mashquulsan dhankaas iyo Israa'iil macnaheedu waxa waaye Israa'iil ayaa u ah priority-gooda koowaad in dhanka Erbil ama Kurdiyiinta meesha ay degan yihiin ayakana waxaa lagu qaaday weerar meel ciidamada Mareykanka ay ugu keydsanayeen hub isla mar ahaantaana ciidamada waa meesha kaliya ee ciidamada Mareykan ay joogaan dalka Iraq oo ay hadda ku hareen kadib markii ciidamada intooda kala Mareykanka ay ka baxeen marka sidaas awgeed ayaa waxay noqonaysaa ayadana meel kale oo ciidamada Mareykan lagu beegsaday waatana wariyaan oo CNN oo nooga soo waramayso dhankaas iyo Iraq. But this being the Kurdish Autonomous Region, there are still some US servicemen and women here. If you look, you can see that black smoke we heard just moments ago as well, air defenses going off, and there has been pretty steady activity. dhankaas iyo Kuwait waxaa la soo riday 3 diyaaradood oo loo yaqaan nooca F-15 oo diyaaradaha Mareykanka ah oo kuwa ugu caansan ay kamid yihiin diyaaradahaas oo hadda markii laga wareysto qaabka ay u soo dhaceen
ay ku Mareykanka ku macneeyeen friendly fire ama dad oo isla saaxiibo ah ku qaldamay ayaa waxaa dad badan ay soo sheegayaan in ay tahay arrin ka dhalatay AI-da ama si computer la hagareeyay maxaa yeelay qaabka ay u dhacday ma ahan qaab macquul ah diyaaradahan ma laha Iran noocaas ah ma ilahan mid kale ma soo gaari karaan ilaa Kuwait inay airspace-kooda soo gudbaan aad iyo aad u adag tahay marka waxay xitaa dad khubaro oo la wareysanayo waxay leeyihiin waxay tahay code qaldamay diyaaradaha ay soo rideen ciidamada difaaca Kuwait ayaa dadka qaar waxay leeyihiin khubaro ah in ay suuragal tahay in ay Iran hagareysay systemka difaaca cirka maadaama systemkaas uu kala sheego diyaaradda saxda iyo tan qaladka asagoo isticmaalaya qaab code ama AI la geliyay wararka ayaa sheegaya in hubkaas oo ku shaqeeya haddan la sii hormariyay AI ku shaqeeyo oo code qaldan la geliyay ee arrintaas ugu wacan tahay inay u maleeyaan diyaarada cadow oo ay sidaas u beegsadaan meelaha oo lagu storage gareeyo data marka taasna dad ayaa arrintaas waxay leeyihiin waxaa macquul ah in ay Iran weerartay weerar xagga cyberka ah oo ay keentay in ay dadkii isku qaldamaan oo sidaas awgeed saddex diyaarad loo soo rido hase ahaatee saddexdii pilot iyo saddexdii kalkaaliyeeba way ka baxeen lixdoodiba way bad qabaan waxay ku boodeen parachute-ka balse diyaaradihii halkaas ay ku burbureen diyaaradahaas oo qaali ah oo $200 milyan ah tirada ka dhimatay ciidamada Mareykanka oo hadda la xaqiijiyay ayaa ah 4 dhaawacna wuu jiraa sidoo kale waxaa badan oo la sheegayaa in khasaare fara badan soo gaaray Israa'iil magaalooyin kala guddisan istiraatiijiyada ay Iran isticmaalayso waxay u eg tahay istiraatiijiyo dhanka Russia laga isticmaali jiray oo ah in dadka hubka iyo rasaasta laga dhameeyo maadaama ay ayaka waxa ay isticmaalayaan ay yihiin wax aad u raqiis ah page meeshan ayaa waxaad ka arki kartaa istiraatiijiyadaas oo saddex qaybood leh marka hore la rabo in la indhatiro ka bacdina la exhaust gareeyo ama la deplete gareeyo oo laga dhameeyo rasaasta marka ugu dambeysana overwhelming lagu soo biyo oo wax alla wixii la rabay oo la haystay lagu soo rido marka madaafiic kala gidisan oo kala qiimo badan ayaa meesha kaaga muuqda madaafiicda Mareykanka oo isticmaalaya ama kuwa ku qabanaya waa madaafiic aad iyo aad qaali u ah kuwa ay Iran isticmaalaan ama droneska isticmaalaan waa wax aad raqiis u ah marka waxaa dhici karto dagaalka inuu sii socon karin markastaba qofka waxa badan isticmaalayo ayuu dagaalka waqtigiisa ugu dheer ku socdaa dabcan dagaalka qaabka oo ugu socdo Iran waxaa la gaarsiiyay dhaawacyo lixaad leh balse markii la wareystay Iran ninka u ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo haddana asagana arrintaas laga wareystay bal wuxuu yiri ila daawo Who is in charge in Iran this morning? The Constitution speaks for itself. We have a president, we have head of judiciary, we have the head of parliament. sidii idinkaga muuqato wuxuu leeyahay constitutionkeena ama si dowladda sharciga u degsan ayaa kala markastaba kala qoondeyn doono qofkii shaqadiisa bedelaya sidaas awgeed wuxuu leeyahay arrinta maysan waxa kanin way sii socotaa waxaa la fiirin doonaa inta ay Mareykanka dagaalkaas sii wadi karaan inta ay xirnaan karto hawada bariga dhexe inta ay xirnaan karto isu socodka maraakiibta iyo ganacsiga arrintaas oo dhaawac weyn ku keeni karto adduunka dhan iyo gaar ahaan gobolka bariga dhexe wixii ka soo kordhan arrintaas anaa idin soo socodsiin doono waa halkaas iyo Ismaaciil oo idin salaamayo fadlan page-kan haddaadan hore u raacsanayn ku soo xirmo peace